qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya ayaa digniin u jeediyay ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah oo ku aadan inay ka qayb galaan shooyo ka dhacaya gudaha dalka Soomaaliya iyo dibaddiisa. Culimada ayaa sheegtay in munkarkaasi uu yahay mid aan wanaagsaneyn isla markaasina aanay ahayn dabaaldegga ciidda. sidoo kale culimada ayaa uga digtay milkiilayaasha hoteelada inay ka kireeyaan dadka doonaya in shooyada ay ku qabtaan hoteeladooda. waa kan Sheekh Maxamuud oo Cabdulla Cariif oo arintaasi ka hadlaya oo laga faa'iideysto oo khayr la sameeyo loogu tala galay mooyaane maalmo macsi maaratay loogu tala galay maaha. cid ku sameysana Ilaahay cadaabka iyo dambiga alcaaf almudaacafa Ilaahay ugu dhagaya sida maaratay khayrka ay u badan leeyihiin amal saalix hadii la sameeyo ayaa qofka shar ku sameysana Ilaahay u cadaabka alcaaf uga dhigaya. baa rasuulku wuxuu dhahay alayhi salaam ayaama ma jiraan uu dhahay oo amal saalix dhexdooda lagu sameeyo oo alla uu ka jacayl badan yahay 10 kan maalmood oo bishaan oo maartay Dhulxijja markaasay asxaabtu waxay dhaheen hatta jihad fi sabiilillah hatta jihad fi sabiilillah illa nin mooyaane naftiisa iyo maalkiisa ina la baxay waxba aan la soo laabanin ninkaas mooyaan rasuulku oo naftina waayay maalkina waayay bal fiiri jihad oo maaratay dirwatu sinama ayuu rasuulku ka fadilay markaas waxa weeye nin naftiisa iyo maalkiisa jihad fi sabiilillah xaq la aaday oo gaalada aaday ee naftina ku waayay maalkina waayay ninkaas la dhihi karo waa la sameeyay marka meesha ay gaarayso ma sahlana marka in maalmihi sidaas ahay ay noqdaan wax looga faa'iideysto faa'iido ma ahayne oo loo fahmo waxa weeye farxadu waa la farxada waa la damaashada waxa la allahu mubaax wax la yiraahdo jira laakiin mid hadda magaaladan Muqdisho lagu sameeyahay iyo meelaha kale oo qaarkood oo dadkii maaratay ay ka dhigaan sidii Christmaskii oo kale ay ka dhigaan dadkii Ilaahay ka furtay ay ka dhigayaan waxa waaye maaratay waa dambi iyo kabaa'ir iyo diinta islaamka oo laga tagay oo aqoon loo lahayn dadka waxa sameynayeen ma u maleeyeen in diinta islaamka waxba ka yaqaaniin dadka meelaha guryaha dhisay hoteelada iyo meelaha maaratay iskalene waa looga digaa maalka xaraamta oo waxaas ku kasbaayaan Ilaahay maalinta qiyaamo sayudawiquna bihi yawmal qiyaamati kii la yiri waayo mas oo aqraca oo hal mar qofka doow qaniino 70 sano suntiisu ayna deeyeen oo ma saacad walbana qaniinay ay Ilaahay maalkooda uga dhigaya. dhinaca kale Dr. Shaawo Bakar Xasan Maalim oo aan la hadalnay ayaa isna ku biiriyay digniintiisa ku aadan ummadda Soomaaliyeed ka qaybgalka waxa loogu yaray shooyada ee lagu qabanayo habeenka ciida magaalada Muqdisho ee qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya iyo deegaanada Soomaalidu ay degto. waa sadcuudka aad ay u mahadsan tahay waxa weeye horta maalmaha ciida walajeedada loogu tala galay waxa weeye waa ayaamu dhikrin wa shukrin waa maalmo Ilaahay xuskiisa la badiyo waad arkaysaan nabigeena sallallahu alayhi wasallam wa baraka calayhi wuxuu inoo jideeyay takbiirta xamdiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala in la badiyo iyo tasbiixda walidaalika waxa haboon in qofka waxyaalaha aakhiradiisa iyo adduunyadiisa anfacaya inuu maalmaha uu ku mashquulo waqtigiisana uu ku bixiyo nabigeena sallallahu alayhi wasallam wa baraka calayhi wuxuu tilmaamay in waqtigaaga lagu la xisaabtami doono حديث waxaa jiray saxiix oo nabigu uu ku yiri sallallahu alayhi wasallam la tazulu qadama 'abdin hatta yusala 'an arba' qofku tilaab ma qaadayo maalinta qiyaamaha ilaa 4 arimood laga weydiiyo 4ta arimood waxa ku dhex jiray an umrihi fi ma afna umrigaaga maxaad ku bixisay saacadahaagi qaaliga Ilaahay kuugu deeqay maxaad ku bixisay walidaalika waa xaraan maalmaha ciida iyo maalin kaleba in show iyo gabdho qaaqaawan oo iyo maragtaa rag iyo gabdho niikinaya in maalmaha maragtaa lagu ciido oo la yiraahdo fantasiyan dhigayna dabaaldego aan dhigayna laguna dabaaldego wax Ilaahay carag gelinaya wax qofka sumcadiisa iyo sharaftiisa wiiqaya maxay yeelay maanta waan ognahay markii carada Ilaahay laga soo tago xataa qofka bulshada ayuu maragtaa indhahooda ka dhacaya qofka shooyalka ka qayb gala oo waxyaalaha qaaqaawan fiirsada gabadhii maanta guur doonaysa xalaal doonaysa waxay leedahay wiil akhlaaq leh oo adduunka iyo aakhiradeedaba anfaca ayaan doonayaa haddii sidaas oo kale wiilku uu aroos bari uu doonayo wuxuu leeyahay gabadha maragtaa asturan ee xijaaban ee Ilaahay ka baqaysa ee akhlaaqda leh ayaan doonayaa maantana wuxuu rabaa inuu ku fiirsado birina markii mustaqbal uu ku dhisayana inuu ka talaabsado ayuu doonay oo gabdhaha aan showga ka qayb galin oo aan niikada iyo fisqiga iyo waxyaalaha aan daawan
ayuu rabaa inuu maaragtaahay berri uu kaa tallaabsado maantana wuxuu rabaa inuu kaa dhigto yacni doog oo kale ama wax maaragtaa doog uu ku gudbayo oo wakhtiga uu ku dhammaynayo marka waa xaaraan maalmaha noocaas oo kalea in carada ilaahay subxaanahu wa tacaala wax soo jiidaya laga qayb qaato ugu dambayntii sheekh cabdikariin cuhmaan caynab oo ah mudaris caalima oo ku sugan magaalada muqdisho oo aan la hadalnay ayaa arrintaas isna ka hadlay. subxaan allah horta waxaan u aqaano ma aha showgo dhagtaan ka maqlay waxa lagu sameeyana ma aqaan isagana ma aqaan laakiin waxaan ka soo qaadanayaa haddii ay tahay meel dhalinyaro gabdho iyo wiilal inta la iskugu keeno lagu samaynayo waxaan shareecada islaamka miisaankeeda ka baxsan taasi waa munkarna ilaahay loogama shukriyo waxa haddaad ilaahay uga shukrinaysid nicmada uu ku siiyey iyo farxaddan uu ku siiyey waxa weeye waa shacaa'irta islaamka ka mid tahay waman yucadim shacaa'ir allahi fa innaha min taqwa alqulub waxaa la rabaa marka shacaa'irta diinta oo ciiddu ay ka mid tahay shacaa'irta waaweyn in ilaahay cabsidiisa lagu weyneeyo farxadda muslimiinta laga farxiyo lagu weyneeyo tacdiimku inuu dhinacaas galaa la rabaa mooye in lala xadgudbo nabigeenna waa ka yidhi taqilaa xayumaa kunta meeshaa ku sugan tahay iyo wa kayfa maa kunta zamankaa ku sugan tahay iyo xaalad kastoo aa ku sugan tahay in ilaahay ka cabsataa la rabaa aana faraxuna kula xadgudbin murugayna isa kula xadgudbin hadaa billahi tawfiiq habeenada ciidda ayaa waxaa la qabtaa isku imaatino aan ku wanaagsanayn diinta islaamka oo ku aadan showyo lagu qabto magaalada muqdisho ee qaar ka mid a gobollada dalka Soomaaliya oo ay isugu imaanayaan rag iyo dumar kale ajnabi ah. xasan maxamed samatar cawke hoyga diinta muqdisho.